ilka case wuxuu qabaa sixirka cabsi wuxuu qabaa cidii maysataa haa cidkan sii dhacdaga cijaal soo jaray tina iska soo googooyay kuwana la soo qaatay wixii tunta taas loo dhijiyay sababta lagu wixii dhacda waa lagu duuduubay wadaga dhag markii hablees biyaa lagu dhijiyay sixirkiina feega hadduu burburay eega wadaga dhag markii hablees biyaa lagu dhijiyay sixirkiina feega hadduu burburay eega wadaga dhag markii hablees biyaa lagu dhijiyay sixirkii halista ahaa ee loo maleegay ilka case qays ayuu daahir calasow afkiisa ka qirtay. haddaba muuqaalkan oo ahaa muuqaal layfa oo laga soo galay barta tiktoka ayuu daahir calasow ku kashifayaa dhagartii ay u maleegeen ilka case qays. waxauu isku dayayaa in majaajilo iyo qosol uu ka dhigo, hase yeeshee marka aad u fiirsato dhagartan iyo qaabka loo maleegay waxay ahayd wax in muddo ah laga shaqaynayay. haddaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkaas oo kashifaya dhammaan dhagarihii loo maleegay ilka case, kaasoo heesihiisa ku soo bandhigi jiray in la sixiray, sixirkiina ugu dambeyn shiiqii dhoobaweyn uu ka qaaday ama uu ka dulqaaday sixirkaasi amaba uu ka furfuray. hase yeeshee daawaday inta aanan muuqaalka u gudagelin waxaan si sharaf la kaaga codsanayaa inaad muuqaalka leegaraydo, sidoo kalena aad ku soo biirto janaalkeena Haldoor Media adigoo janaalka subscribe dhahanaya ganbeelkana u furanaya si aad ula socoto muuqaalada maalinlaha ah ee waan uga hadalno wax walba oo ku saabsan arrimaha Soomaalida. haddaba daawadayaal baraha bulshada maalmihii lasoo dhaafay isqabqabsi xoogan ayaa ka socday, kaasoo u dhexeeya laba dhinac oo kala ahaa Nicimo Joker iyo ninkeeda ilka case qays iyo sidoo kale daahir calasow iyo rag badan oo dagaalkaasi ku taageersan uu kamid yahay Yacquub Siyaad iyo rag lamid ah. haddaba ilka case ayaa marar badan waxa uu ka dhawaajiyay in la sixiray ama sixir loo maleegay. haddaba daahir ayaa markii ugu horeysay waxa uu afkiisa ka qiranayaa in dhagartaasi ilka case u maleegay isagu. haddaba daawadayaal ma doonaya inaan hadal badan idinka dhex geliyo, waxaan rabaa muuqaalkan oo daahir calasow uu kaga sheekeynaya qaabkii ay u dhagreen iyo wixii ay ku sameeyeen, walow isku dayayo inuu majaajilo ka dhigo. hase yeeshee qisadani waa qiso dhaba oo dhacday. ilka case ayaana horay midan oo kale uga sheekeeyey, bal haddaba daawadayaal aynu isla daawano muuqaalkaasi. muuqaal ugu celina wallahi billah qaliina badan oo reereeyo daawanaya nafta ka dhacaysa ninkaas saaxiibana mugtani أنا مساعدك ولا كيوا أنا وسكت ستي يا هاوس ما كذا نيجي سنة يا هاوس ninka wuxuu aaminsan yahay sixirku wuxuu ugu aaminsan yahay أصيع qofka dadka qaar program galaan ها laakiin maqashay بوف صلاة ilka case wuxuu qabaa buufis oo sixirka cabsi wuxuu qabaa هي marka wiilasha oo reereeyo oo saaxiibada way yaqaanaan صح marka way ga dhacay sheekada waxay odagan sixirku ka baqa waxay leeyahay marka cidii maysataa haa cidkan sii dhacdaga cijaal soo jaray tina iska soo googooyay kuwana la soo qaatay wixii tunta taas loo dhijiyay sababta lagu wixii dhacda waa lagu duuduubay odaga قال له قحرة boqolka shan Soomaaliyeed waa jecel farad mugta أيه asaga da boqolka shan Soomaaliyeed uu kuriya kaasow oo bilaabo odaga ragii kaasow team kaasow raga abu aasa waa nimankan barashu ugu bilaabay mataqaana nimankan team kaasow damaqash nimankan waa odaga dhag markii hablees biyaa lagu dhijiyay hadhow kala text message isoo qoray WhatsApp xal dhahay odaga waxaad tiraahdaa waxa ku dhigan maxay yihiin أيه exactly تضوح تضاف في أركو داية ولا شكلها عاوة صدق قعنا عيارنا بس شن قعنا عيارنا شدح قاع تضوح قعنا دقها ويقراو هذا ورشاكذا وأنا إلى بدينا مهمة شاكذا معيتها كداية هاي هذا هذا واحد من يلك عش هاي بقرو هذا محي وحكى الله إذا استقبلنا فلان لو كل جزء عرّا وصوح الجعل مرخان خصار أيه وهذا شكله قام برادر عليك وحول برادر ديك شو له كان ده عليك صح ما جبت قال رجع يفهم ياسين أيه يفهم أنا برادر محمد عيال حمر نوانا عيال حمر نوانا
كابتن ولا بتجيب هي كل في هذا ماشي بحشنا والله هي عتمت هي ولا خدوه لا هذا فريق في هذا الشيء بعد نسي بعد يقول ولا غلط ولا انت هي والله حبيبي كده وع ماله صباحدي وع ماله قلبتي وع ماله ما انت كلا وع ماله ما نسد هذا اللي منه هي هو جانجس كده قاعد صاحبكي وسلامة هي واحد هذيك فويضة من وش كو فرادة هاي تدمتي تديك هي أبغى أنكو هاي هلا نحن ما حد عنده هي وده هاي وهي عايز تستوي كناي هل ساعدي وش اللي قال هاين ها إنها دم واحد ما هاي لأنه داقر شكلها ما حدا مسواسة بس إلى والله بدي أطلع واحد لا هل صح ووش أنا أبغى أقول إنه سميها يوريسكو عيال سميها يا هي waxaan dhahay inaa ilaah naga baxshay aniga wakaasaa waxaasa idhihi istaabo aniga waxaan dhahay mi weydiinis miya intee ku ogaatay mi weydiinis miyaha goorma ay kaa dambaysay 2 maalin ka hor bambaasaan tagno shiiqa dhoobooyno هي shiiqa dhooboweyn aan tagno فاهمة عيال حمر هي shiiqa dhooboweyn wuxuu dhahay arrintan khatar waaye fahad yaasiinaa ka dambeeyano أحمد haddii bahakan abaabulina ay wixii dhegraada dhaha dimno هي qofkina hadduu taabtana khalaas noloshiisa abaabulina بيا afar habeen kadib odag waa la fadhiyaano هي alaabtiisa biyihiisa la dalbaday jaalsa ma jecla xagaa la fadhiistay cabitaankiisa la cabaa dhigaha wax la gashtay laptop macbook waa lala soo baxay waxaa la dalbaday pit sheekha dhooba weyn baa i dabiibay la jahaaday xogeyga ka waxeeyey shalay hadda waxaa ku dhan taqaanaa قيس هو شاكل أنا وانا قيسنا يا شقكم بلي وانا قيسنا يا اللي هي فوق كشنت الصوفة odag waxaa la aaminsan yahay sixir no ها وقت أنا ويا ها شباب كوي على جروح عين وريده محاول كرب تمام كلام يكلم كنا هاي aniga ayuu kaar la isoo xirasho wuxuu yiri daahir arintan waxa ka dhaho laba nin waa la sibi karaa aniga markaan shan booy la jiri laba nin waa la sibi karaa meel saaka fiican ما شباب ما يجري saaka fiican wuxuu yiri salaad islaam ka qaadi ma haddana adeeg dambo waa boqorka shaqada Soomaaliyeed isoo duubay saaxiibka yaa tahay odayga yaa tahay loo ma ya أنا واحد كنت الرصاص صاحب واحد أنت برك أحمد هو عاي مات بهالك وصل في السوشيال أفر كلمات بقول فتاعن هذا وافيري بس يوسف فردوس جيم soo qabay kulaa soo qabay fردوس جيم aad la soo qabay leedahay xaga u turtay ولا يا دكتور أنا ما أطوري mayo markii qof la soo qabto banaha dhacaya qof kale ma qaba ka ayamaha la sii fiil ما هذا أنا صبورنا وافيري ما qayso wariya waxay واجس لما جوكر waxay la jirtay sharon boy ani sharon boy la jira adiga sharon boy la jirtay ani sharon boy أنا soo شنو saaray بقول wuxuu أجري واجا شنو بقول تاجر صدق waa isku dagaalno صدق nin فيديو saaxiibkay ugu dacweeyay waqti dambe isoo laabay صدق فيديو قال لك عسكو كرباشي ما شرب ابوي اوصل ضوي الله يا وري ويل كير كان والله ايوه وهذا ninkii waa ka faaqlay agin dambe sashan ani xasawado waxan wariya xasawado ilaa awsan lagu hay magaalada Djibouti ma ogin anaga hawri war waxa ku dhalaa laba oo tagnaniyo ninka magaalada shideeyba adiga abgaar awso ahayd hadda wuu ogaadaba ninkii uu amiriyay sheekada oo lahaa boqorka shanta qaaradood منافقات وعيب موته قف بلاك ونفس بلو شيء حتى انا هواك دعد فنان صوص عليه معه وفنان دارود كوده ها حتى صف فنان دارو يا هويا كان دحي حمر markii lagu xirtay ilaahay baa igu hotelka ana ka soo ambixiyo ka soo bax ma sagal ku dhabax balad burfansi la bortinka ka soo dhoofi garoonka lacagta hotelka shub 9500 ee tigidku u soo jar malax soo deji هي asoo de dhahay igu sawir miya
waxay ka saadhigo sawir oo isaystaan asiga xasan alqayr beel kala maraya farmaajo waa waxa miray waxa ay wuxuu hawiyiga dhacla ku oolwaysa abaal gasho boqorka shanta Soomaaliyeed لو قال waxay ugu qosolka badnaa markuu gurigiisa tagayo uu furi waayay nigu orda nigu waa beelow waxa gaab taqaana wuxuu leeyahay taqaana nigu iska beelow mogta انت qof bil aadan arkay uu sheego anu fitaas ma waxa raan dooreed hooge ma video kasoo duubto gurigiisa waa la yaqaan adoo la wariya soo baxay way u dhalay orda nigu waa beelow orda nigu har kelmad orna ma yaqaan waa asaas ma taqa sababta oo hadda ka horbaanin anagoo qaynayno qaadku noogi jiro wuu nagu dhuusi jiray waagi daba nin qaadkiisa wataa yimid wuu dhuusay wuxuu ku uf waxa nagu dhuusay muxuu yahay abi wasa wuxuu ku yiri ninka hadlay waa kii wuxuu yiri waxaan ku dhaanay war waa nin qaadkiisa soo gato waxba kaaga baahnayn hadda ninka waa nu xamir jirna moogta saxi qaladba imid wuxuu leeyahay gurigiisa taga soo bixi mayo way og yahay aniga hadda telefoon buu isoo diray oo shaqeynaya anu sheekada waxa jeclaa oo taqaana waxay dhigi jiray mataqaan faad yaasin ba ilaadinay ha habeen buu soo galay moogta live habeen fahad yaasiin waa qaldanta inaad soo xiriirto intaas ka balsiin wada hadli karno marka hadda kadib habeen wuxuu u taqaanaa Axmed Madoobe inaan ku haya kismaayo waa ogyahay bu'aal hadduu yimaado inuu si imaan karin waa ogyahay waxaan halkan ka hayaa inaa aabow inaan libaaxsha Soomaaliya waa markuu cabo wey mid kalena isku soo wada duub dhacdadani waxay muujinaysaa in waxyaabihii uu ka hadlayay ilka casaqays ay wax uun ka jiraan ma hubo in daahir uu dhagartaasi ka dambeeyey ama ay tahay wax run ah waxa uu ka sheekaynayo hase yeeshee runtii arrintan ama hadalka uu daahir ku hadlay waa hadal runtii loo raacan karo maxaa yeelay isaga ya afkiisa waxa uu ka qirayaa in uu ninkan ay ku cabsiiyeen sixir runtii sixirna wax la isku cabsiyo ama runtii ciyaar gala ma ahan haddaba waxaan leeyahay arrintan waxay noqotay ummadda Soomaaliyeed ee u deenayna qaybta commentiga fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay nala wadaag inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sidaa ya nabadgeliyo mahadsanidin